السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا صاحبada ku xiran kanaalka Hanasho isku soo noqod wanaagsan safar yar ayaan galay ugu dambeeyna waa soo laabtay adigoon 2 week waxaan dhameen 2 week ku dhawaad ayaan maqnaa alxamdulillah safarkiisa nabad ayuu soo dhamaaday asxaabta intii yani dul qaadatay muuqaalada inaan soo galeysay sugeysana yani waan kaga mahad celinayaa تذكر وحان ugu faraxsanahay yani anigoo maqan yani 2 isbuuc amba isbuuc yani youtube ka maqan yani asxaab ku marka arka asxaab ku soo beereyso yani si daawanayso runtii aad ugu farxay marka yani intaas hordhaa waaye yani asxaabta dhamaantiina wada mahadsantihiin marka saa teetalka ku soo aragteenba yani asxaab badan oo yani teetalka in laga hadlo sugaysa jirta marka wax yar ayaa rabaa inaan ka taabto dadka waxay jecel yihiin inay horta social media lacag ka sameeyaan laakiin yani shuruudaha ka hor imaanayo amba wax qabadkii yani wax aqbaleed ayaa goor istaagay marka yani dhabar adeeg badan dulqaad iyo yani wixii ina u fiirsato yani ayaa laga baahan yahay asxaabta jecel horta Facebook page inay lacag ka sameeyaan shuruudaha horta hore ugu soo hadalnay oo 10,000 ina gaarsiiso minute fiigan ina buuxiso muuqaal walba muuqaalka yani muuqaal aan leedahay ku buuxiso yani wadamada loo ogol yahay oo shan wadan ay oo weyn jiro laakiin wadamo kala jiro yani lagu soo kordhiyay marka wadamada waaweynka ah yani mid kamid ah u dhiibato qof joogo yani xaggaas laga maamulo yani Soomaaliya aan laga maamulin page-kaas muhiimadda waxa waaye anoo kala waxa raba Facebook page inaan lacag sameeyo aan mi in lay daawadan waa rabaa marka asxaabta waxay leeyihiin muuqaalada TikTok oo faniga oo aad ka loo daawado yani lacag ma laga sameey karaa oo yani page inta la soo kashado lacag ma laga sameey karaa horta mar hadii Facebook ka muuqaalka aad soo gelinayso page-kaaga hadii mar laga la soo hormaro yani khalaas waa yani muuqaalkaas waa guday ama page-kaas waa guday sababtoo ah waxa imaanayso limit originality amba share content waxba imaanay oo ah waxyaabo aadan lahayn aad soo gelisay muuqaal aad leedahay maanta qof saaxiibka hada u dhiibato oo ka soo horkashado yani waxa noqonaysa limit originality iyo waxba asaas ku dhacayo okay limit originality wax intaan u gelin muuqaalka muhiimadiisu waxa way muuqaalada TikTok yaalo lacag ma laga sameey karaa yani page-kiinta soo gashado lacag ma laga sameey karaa TikTok ka gashay muuqaalo fani ah soo qaadatay waa soo jarjaratay 3 daqiiqo ka soo dhigatay page-ka soo gashatay haddana adil laga la soo hormarin yani waa ka sameey kartaa oo yani adil aan laga la soo hormarin laakiin dadka caanka ah oo muuqaalada si degdeg ah loo soo qaato waa in iska ilaalisaa amba markii amba dadka kala soo hormartaa wax u dhaxay male application jiro yani watermark ka reebayo oo yani TikTok waxa bil qofka magaciisa kale waxyaabaas ka reebayo marka shirkadda waxyaabaas ma ogola marka TikTok iyo calaamadahaas oo yani oo watermark iska reebaysa si nadiif ah oo soo degaysa waa dadkaresanaysa 3 daqiiqo ka dhiganaysa waa soo kashanaysa markaas lacag waa ka sameey kartaa marka asxaabta muuqaalka muhiimadiisu waxa waaye hadii aad doonayso in muuqaalada TikTok aad soo qaadato lacagna ka sameeyso tala yar ku siinaya waxa sameynaysa live-ka oo yani live-ka socdo TikTok yani oo dadka caanka ah live-ka soo galayaan waxa sameynaysa waa soo duubanaysa oo yani adoon 10 daqiiqo amal ka soo duubanaysa 3 daqiiqo oo jaranaysa waa soo kashanaysa okay muuqaalaas xuquuqdooda adaa leh waana ka sameey kartaa Facebook page markii aad lacag u dalbanayso meelaha laga fiirinayo yani waa lagu indheynaya page-ka waa la fiirinayo marka meelaha ugu muhiimsan la fiirinayo yani dad badan aan ogeyn marka insha Allah muuqaalada xiga inoo ahaan insha Allah muuqaalka inoo la kareeyo aadan u mahadsantiin